واتهاي أصحابتا أيوب شو ما أنت وكدوي دمانبا مقالدي هراء دوغا براتين وحقرب كيغي تاغن روعدا صحافدين محمد عبديلي waxaan rabaa maanta inaan idin sheego su'aalo aad u kooban aadna u muhiim ah oo maxamed aanu hore uga jawaabin sidoo kale waxaan la eegi doonaa maxamed kambanigan iyo shirkaddan oo asaasay ee telefishinka MMTV oo 2 sano wax ka yar gudahood ku noqday telefishin aad u weyn waxaan weydiin doonaa maxamed sababta u saamaxday in telefishinkiisu muddo aad u kooban uu ku sameeyo guulo waaweyn maxamed soo dhow aad baad mahadsantahay Ayuub waan soo dhaweynayaa Ayuub show su'aalo kooban oo aad nuxur leh oo aan jecelnahay inay bulshada wax ka faa'iidaan insha Allah waan gudbin doonaa barnaamijka Ayuub show waxaan jecelahay inay dadku ku xidhnaadaan waxa wanaagsan ee uu gudbinayo nolosha bulshada ku saabsanna ay kala socdaan waxa uu ku biiray mihnada saxaafadda xilli ay adag yihiin duruufaha warbaahinta gaarka loo leeyahay ee guud ahaan deegaanada Soomaalida waxaana adkayd xaaladda suxufiga iyo saxaafadda balse iyadoo taasi jirto maxamed cabdi ilig waxa uu rabay inuu xaqiijiyo hamgiisa warbaahinta sababtuna waa tan iyagoo mihnada saxaafadda horta marka hore aan shaqadan bilaabay waxay mihnadeyda koowaad favorite-kayga yani xiisaan u hayay waan jeclaa waxaana jeclayna kama shaqayn karta waxaan u jeclaana waxa weeyaan mas'uuliyadda la qaadayo warbaahinta inaad dadka u shaqayso qofka suxufigii waa shaqaale dadweyne marka inaad dadka u shaqayso waa xiise gaara waa mas'uuliyad gaar waxa weeyaan anigu Ayuub ahaan maxamed ahaan markan Ayuub si fiican kuugu fasiro waxa weeyaan waqtiga adag ee warbaahinta aan soo galnay ee aanu digitalkan casriga jirin ee ay ahayd haddana inaad ka midho dhaliso shaqadaada waxay inaad waqti bixiso inaad dadaal bixiso inaad wax barato inaad soo jeedo inaad shaqada lagu guulaystay shaqada xafiiska hormaro inaad naftaada hormariso inaad dad dhisto intaas isku garab soconay waqti aad u adagna way ahayd runtii maxamed cabdi ilig ayaa waxa uu ka mid ahaa saxafiyiin kooban oo mihnada saxaafadda ku biiray waqti aad u adag caqabadahanna waxay ka mid ahaayeen kuwa uu maxamed la kulmay waqtigii uu bilaabayay mihnada saxaafadda Ayuub horta warbaahinta caqabad badan bay leedahay caqabada leedahay waxa ka mid ah salaana Hargeysa xagga deegaanka kale waqooyiga Norska ka deegaanka xafiiskayga TV-ga anu shaqo tagay waxa ku yaalay bariga isku ku yaalay jaamacadeedana waxa ku taalay Southka oo koonfurta magaalada Hargeysa oo noqonaysa koonfur galbeed noqonaysa jaamacadda Hargeysa xafiiska loo hadana aan part-time ku shaqeynay waxa ku yaalay Westga galbeedka ayuu ku yaalay Hargeysa marka maalintii misaad ku maray gurigeed ka soo baxaysay bariga tagaysay townka horta suuqad ka shaqeynaysay inta u dhaxaysa iyaga oo wararka ka wareysay bariga tagaysay waan ka soo baxay maqribkii dabadiisa jaamacadda Hargeysa tagay jaamacadda Hargeysa ka soo baxay galbeedkan tagay galbeedkan idaacad yar oo online-ka codiyar ka akhriyi jiray haddana waan ka baxay haddana waxaan ku noqonay waqooyiga afarta jiye magaalada maanta isku maraysa hal basna gurigaaga inaad ka soo qaadataa laga yaabo inaad suuqana waxba ka helin baa laga yaabo marka joogtaynta ayaa ka muhiimsan caqabada maxamed ilig ayaa waxa uu ka mid ahaa tiro kooban oo saxafiyiin ah isla markaasina ka helay shaqo telefishinka madaxa bannaan ee Home Cable TV halkaasi oo markii dambe ku noqday agaasimaha guud ee telefishinkaasi Brinton ayaa maxamed waxa uu la wadaagay dhalinyarada jecel hal abuurkooda inay horumariyaan wax kale oo dhan waa kula talinahay waxaana jeclayna ka shaqeyn waxa jeceshay ka shaqeyn waxaad niyadu haysana ka shaqeyn waxaad waqti gelin karta ka shaqeyn wax aad ummadda wax ugu tari kartana ka shaqeyn marka ka daa waxaanad karaynina ka shaqeyn shaqa aanad mas'uuliyaddeeda lahayn ha raadsin waa dowlad sanadkii 2021 ayaa waxa uu ahaa maxamed cabdi ilig inuu xaqiijiyo hamigiisii waxaana uu aasaasay telefishinka MMTV kaasi oo haatan ka howlgala badi deegaanada Soomaalida tanina waa sababta maxamed ilig ku kaliftay aasaasida telefishinkiisa ayuu aad baad mahadsantahay walaal horta markii aan TV-ga aasaasiyay dad badan way la yaabanayeen Soomaaliduna way adagtay marka lagu dhaxbaan bilaabaya inay wax aqbalaan aad bay u adagtay oo kula yaabaya ilaa wixii mid dhalaan wixii arko kuma rumaysanay MMTV on bilaabaya TV digital oo cusub casri aan bilaabaya
maxaad ku faraysaa qof walba hore siyaasadda gal hore suuqa iska gal maad shaqaalahaaga iska ahayd maad iska joogtid maxaad ka doonaysaa laakiin waxaasoo dhan ii muuqanay wax ka duwan baa ii muuqan adiga sawirka ku muuqda ilaa mihnadaadii waxay markaad garanayso ku shaqaynayso ceebteeda ogtay khilaafkeeda ogtay meeshay ka hoosayso ogtahay meeshay fahamkeedu uu ka liito ogtay xirfadda dadka ku jira aad ogtahay hay-adaha aad u shaqaynayso hay-adaha shaqada ku jira ee warbaahinta aad ogtahay gaabkaasoo dhan baad isku geysanaysaa markaas wax wanaagsan soo saari karta marka gaabkii muuqday kaas waa intaasi kadib aniga iyo maxamed cabdi ilig waxaanu booqannay qaybaha kala duwan ee telefishinka iyo goobaha kala duwan ee lagu talagalay inay shaqadu ka socoto dhanka kale maxamed ilig ayaa shaqo abuur waxa uu sameeyey in ka badan 100 dhalinyar ah oo ka howlgala haatan telefishinkiisa maxamed cabdi ilig ayaa haatan waxa uu ku jiraa mihnada saxaafadda in ka badan 15 sano sheekada maxamed ilig ayaa waxaan ka baran karnaa inay muhiim tahay inaad dib kasta u marto dadaal badanna samayso si aad u xaqiijiso hamigaaga waa tahay asxaabta barnaamijka maanta intaas inugu egyahay ku xidhno Ayuub Show lana soo muuqaalas aad baa mahadsan Ayuub Show waa soo dhaweynayaa Ayuub Show